السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين كسود هذا الشانل كينا فضلا هدي أدنو كعصبتا سبسكرايب نودي هدا هرنول جوكتاني شارت إيلاك توينو ديريقلين إن ما شاء الله آد أيا أمهسنتهين أصحابتين أما فميل كينا إن أصحابتو عنوغو سو بيرتي عصبنا وانسو دوينينا قعما فرنا يا كسو دوينينا إن شاء الله تعالى إيو إناد وحياو فربضان نغا فايدان أصحابته هرنول joogtana ما شاء الله familku waa familkiini asxaabteeni idinka ayaa halkan ina soo gaarsiiseen ما شاء الله aad ayaan ugu mahadsantihiin runtii mar walbana aad baan idinkugu mahadcelinayaa maxay ahayd mahadcelintiinana kama daalo asxaabteen cusubna sidoo kale soo dhawaada ayaa idin leeyahay insha Allah ta'ala channelkeena waxyaabo far badan ayaad ka faa'iidi doontaan sidaan rajaynayo insha Allah ta'ala maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo positionka ama qaabka ugu wanaagsan ee hooyada uurka leh wanaagsan inay u seexato mar walba haddii aad tahay hooyo uur leh si aad sidaad doonto adiga uma seexan kartid waayo mas'uul ayaa tahay marka hab ayaa jira ku keeni kara maxay heetood inay waxyeelo adiga iyo babyga caloosh ku jira ku keeni kara kugu sababi kara waxyeelo iyo waxaa jiro kuwa kaleeto oo maxay tood idin wanaagsan adiga iyo babyga caloosha kugu jira marka waxyaabaha qaldan oo inta badan la sameeyo waxaa kamid ah hooyada inay u seexato dhabar sida u jeedaan waa qalad uma seexan karto hooyada inay dhabarka u seexato kaleeto maxaa yeelay waxaa macquul ah in babygu uu oxygenka ku yaraado oo sidaasina oo oxygen la'aan ugu dhacdo babyga calooshaada ku jiro marka mar walba haddii aad tahay hooyo uur leh waxaad tahay mas'uul naftaada kaliya mas'uul kama tihid waxaad kaloo mas'uul ka tahay nafta kaleeto ee calooshaada ku jirta marka waxay kaaga baahan tahay ilaalo iyo taxaddar gooni ah marka qaab walba oo adiga jeceshahay uma seexan kartid sidaani haddaad u seexato babygaadana waxaa ku imaan kara maxay ahayd inuu oxygenkiisa yaraado sidoo kale adigana waxaa kugu imaan kara back pain ama dhabar xanuun oo kaleeto dhabar xanuunkaas waxaa kugu sababay miisaankii uur ku jirta ayaa waxay fuulayaan dhabarkii maadaama dhabarka aad saa u hoos marisay marka dhabarkaadan effect ayaa soo gaari kara oo waxaa kugu dhici kara dhabar xanuun ayaa kugu dhici kara babygaadana oxygenka ayaa ku yaraan kara marka ma wanaagsan hooyada maxay ahayd uurka leh inay dhabar u seexato waxaa wanaagsan hooyada inay dhinac u seexato labada dhinac mid inay u seexato siiba waxaa wanaagsan dhanka bidix inay u seexato maxaa yeelay cunugu wuxuu helayaa oxygen fara badan maxay ahayd oxygenkiisana aad ayuu u sareynayaa hadduu maxay tahay hooyada dhanka bidix weliba u jiifato dhaqaatiirta inta badan kula taliyaan hooyooyinka uurka leh ما شاء الله مر والبا كتحدر adiga caafimaadkaada iyo babyga caloosha ku jira caafimaadkiisa maxaa yeelay naftaada kaliya mas'uul kama tihid dhakhtarkaagana la tasho asiga ayaa kuu sharaxi doono insha Allah ta'ala si wanaagsan anagana intuu ilaahayna fahamsiiyay waa idin sheegaynaa hooyo walbana ha ku dadaasho si iyada iyo babyga maxay ahayd nabadgeli lahaayeen ayadana dhabar xanuunka ugu nabadgeli lahayd babygeedana oxygenkiisa oo low u noqonin uu high u noqdo marka dhinac ayaa wanaagsan hooyada inay u seexato waayo effectyaal fara badan ayaa ka soo gaari kara dhabar hadday u seexato soo dhawaada ka faa'iideysi wanaagsan asxaab sidoo kale waxaa jirto barkimahaas oo kaleeto hooyada uurka leh aad ayay u saacidaan marka jilbahana hadhowta kuma xanuunayaan iyo miskaha oo kaleeto inta badan hooyooyinka waxaa xanuuno miskaha ama jilbaha oo kaleeto barkintaas marka aad ayay ku caawinaysaa haddii aadan kan haysaninna waxaad ku bedelan kartaa barkimaha caadiga ah oo jilicsan oo la barkado ayaa qaabkaas u isticmaalaysaa si ay maxay tood kuugu celiyaan jilbaha oo kaleeto aadan uga daalin iyo miskaha oo kaleeto marka qofkii haysta oo awoodana oo iibsan kartana barkimahaas oo kaleeto geedkan yar oo samaysan aad ayuu caawinayaa hooyada uurka leh waxay ka helaysaa inay si fiican u hurdo ama hurdo ku filan ay seexato ama hurdo raaxo leh ay seexato maadaama uu ka ilaalinayo jilba xanuunka oo kaleeto lugu xanuunka oo kaleeto iyo dhabar xanuunka oo kaleeto marka gabdho wax walba oo faa'iido leh insha Allah ta'ala waa idin soo gudbin doonaa
adinkana laagtii sheerta inuu dadaala si asxaabteena cusub u gaaraan insha allahu tacaala soo dhawaada mar kale iyo mar kale iyo mar kale